وحساس وكلا لميدا نينك دوان باللميدا آد كودوان قبل هتو جورسنا قبل على آذان يا حلا ها نور قبل ما يروحوك سنين بقى حوم يعني كوجد حنبا هدي قبل ما سيدو كلا يقول دلاتي لا فيريرانا يقول دلاتينا يروح على آذان يا نينك على آذان يا مركز سلام ها نانيك ما يروحوك سنين ميوك دلا ميوك جميستا ما آخروك ودرا وكاس gabadha iyo ninka isguursadayaan ubad ilaahay aanu siin xasaasiyadaha ku beerin cuqdadaha ku beerin wararka aad raadinaysaana waxay idin tarayaan anigu ma garanayo bal maxay kugu taraysaa qofkan aad maalin walba leedahay gabadha imse ku leedahay hadaa 200 bay leedahay maxay macnaadiyo kugu fadhidaa hadduu raada midba iyo malaha mid siin kartaa adu mid oran kartaa ana ilmahayga yar kugu deeqaya waa maya Soomaa cuqdada umadaha laga daay maanta waxaan halkan u soo fadhiistay inaan ka hadlo mowduuc loo yaqaano stigma waa maxay stigmadu waxa weeye waa in qofka lagu dhaleeceeyo oo lagu cambaareeyo lagu ceebeeyo sifo iyo qaab uu leeyahay tusaale ahaan qofka muuqaalkiisa in lagu caayo la yiraahdo dadka burburan waa noocaas ama dadka noocaas waa sida iyadoo tusaalayaal badan ay keeni doono stigmada noocaas ah dhibaato badan bay caalamka ku haysaa علماء الدراسة علم النفس إن بدن بكهدلين وحنا إن بدن لقد دجالما استجماد حنونا دقائق كودتك أيليهن إن لا دجالم تصالحان تدك HIV AIDS كقبا وحيابها يلنو ليه وحكم ده وحلا يقانا استجما أو كه يستحق يب بالشدة أولي والله يقانا public استجما وبالشدة وحيو هيستها قف كهدي وحنون كAIDS كلا يرحلا وكل عام HIV قال له وشيء إنه هي قفحن إسلام كان ويهي قف سنة iyo arrimo fool xun la yimi oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ciqaabay bulshadana uu ka qabanayo iyadoo xaqiiqadu ay tahay ka duwan tahay oo laga yaabo qofkan HIV AIDS ka qabay inuu ka qaaday qalliin lagu sameeyay ama dhiig lagu shubay iyo waxyaabo la mid ah ama uu guursaday gabadh uu haystay inay tahay gabadh caafimaad qabta balse ay ahayd gabadh xanuunkan qabta oo iyada lafteedu xumaan ku soo qaaday waxa laga yaabaa iyada lafteedu inaanay is ogeyn oo ay gabadh miskiina iska ahayd oo iyada lafteedu xanuunkaas sida ku soo galay iyana ay sii gudbisay dhakhtar bay u tagtay ilkaha markaas uu qalab ugu shaqeeyay qalabkaas oo si wacan loo nadiifin waa tusaale ka bacdi gabadhaasi qalliinka noocaas lagu sameeyay ama iliga laga sameeyay ama meel kale laga sameeyay qalabkii loo adeegsaday waxa loogu shaqeeyay qof xanuunkaas HIV AIDS ka qabay sidaas ayaan ku soo qaaday maanta mowduucaygan wuxuu ku saabsan yahay stigmada waxa loo qaybay ilaa 7 nooc waxaan doonayaa mid ka mid ah inaan soo qaato xalaqadaha kuwan ka dambeeyana kuwa kale aan ku soo qaato midda koowaad aan soo qaadanayo waxa loo yaqaan public stigma waa maxay waa in bulshadu waxyaabaha qaar kood ay u yaqaanaan inay xumaan ay tahay ama ay dhaleeceen ay tahay ama wax laga wanaagsan yahay ay tahay mar walba ma aha ceebayn iyo dhaleecin kaliya balse waa in laga wanaagsan yahay oo qofka waxa ku sugan la dareemo somehow inuu dadka ka hooseeyo ay wax ka siiyihiin tusaale ahaan nin iyo gabadh baa iskuursanaya labadaasi lamaanaha iskuursaday muddo ay qaadanaysaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ubad u siiyo kaasi dadka waxa oranayaan war heere gabadha imsaad qabtay 2 sano oo welina wax ubad ma dhalin miya waxa qofka nafta laga jaraya gabadha imsaad ku leedahay uur ma qaaday ma dhashay waxaan maan dhaweyta la kulmay walaal iiga sheekeeyay mushkilad ka qabsatay xagga iyo guurka wuxuu yiri gabadh baan guursaday 2-3 maalmood arooskayga ka bacdi baa islaan xaafadayada ah oo caan ah oo aan kala haybadeysan jirnay soo garaacay waxay ugu tiri eeda ma fiican tahay ha eeda gabadhi uur ma qaaday waan yaabay buu yiri waxaan siri uurkan waa maxay kadiska ay ka gaarsiiska ah muddo yar baan anagu aan isqabin 2-3 bilood baan isqabinna bulshadii kiiga soo horbaxay wax leeyahay gabadhi intee ku leedahay ninkaasi siyaabo kala duwan buu fakiray mar wuxuu ku leeyahay waxaan ka fakaro waxaan isiri war heede ma waxay ku leeyihiin gabadhan waa gabadh laga gaarsiiyay mashaariicda noocaas oo matalan waxa arkaysaa gabadh iyo nin iskuursaday oo matalan arooskoodii uu dhacay bishii 5aad oo kale gabadhiina ay umushay bishii 9aad oo kale waa imse bilood baa u dhaxaysa 4 bilood meelaha 4 bilood macnaheedu maaha de ninkan xaaskiisa inuu la kulmo inuu bilaabay habeenkii arooska balse waxa uu bilaabi karaa oo sharcigu u baneeyay daqiiqada loo meheriyay
in inta saaka 10 subaxnimo loo kala tuuro inuu markiiba garaacay dhado hudheel hebel suukan kan ama guri hebel ay isugu nimaan deedna 12 mashruucooda ay dhameystaan kabacdi asaas ku dhacdo mushkiladda xagga ubadku waa mushkilad weyn weeye cuqdad iyo xasaasiyad bay dad badan ku beertaa lamaane ilaahay subxaanahu wa ta'ala maan walba ka baryaya ilaahay ubadna si oo iyagu qadarta ilaahay aaminsan waxa ku kaakicinaya dadka ku kaakicinaya waxaana gabadhi miyaana wali wax dhalin gabadhi miyaana ubad ku lahayn caruur miyaana dhalin wali maxaa qaldan waliba inta waxa dheer cidda inta ugu badan la eedeeya waa gabadha weeye lama oga in ninku qaybta ugu weyn uu isaguna leeyahay sidoo kale oo hadii uu 50% ay gabadhu leedahay 50 kale ee jaaniska ilma qaadista in isaguna qaybtiisa leeyahay gabadhi baa la eedeynaya miskiintaas hadhowta loogu tukanaya public stigmada waxa kamid ah xanuunada maskaxda ku dhaca qofka la yiraahdo xanuun maskaxeed buu leeyahay ama xanuun maanka buu leeyahay bulshadu waxay u taqaanaa inuu yahay qof xanuunsanayo waalana waxba loo weydiinin xataa qofka lagu yaro ogaado khayraad iyo shaki lagu ogaado waxba lama weydiiyo waxaad arkaysaa reer dhan oo shiraya oo dhan iyo hebel ha oo yaro maskaxda waxba ha weydiin isagoo halkaas farta ka taagina war aniguna ra'yi baan hayaa salaamay inaga amsiinaya yarkaad waxba aad hadlayna inaga amsiya kaasa dadkii isagoo maqlay waxaan uu xanuunsanaya qofka cuqdad intee leeg baa lagu beeraya cuqdad aan inaba caadiyin ba qofkaasi lagu beeraya waan arki doonaa waxa kamid ah tusaalayaasha furniinka kamid ah nin gabadh baa waxay qabtaa ama waxa qabay nin xun ninkii baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka furaya oo laga yaabo in ilaahay faraj ka khayr badan iyo wada ka khayr badan baa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo wado gabadhii marka la furo ka bacdi suuqa soo gasho waxa la oranay gabadhiyadu haasaabso waa noocma waa la furay gabadh la furay wixii lagu furay farqeeda ku seetaa masiibo weey haday naag wanaagsan tahay ninkeeda haysan laha gabadhaasi cuqdad baa deena lagu beeraya nin kasta ay markaa uu salaado la haasaw baqolo qaraabadiisa ama saxad sax koonay warwaade wal soo furay waa forjiway miskiintaasi iyana waxa way cuqdad baa lagu ridaya ku saabsan xagga iyo furninka public stigmaha ama mushkiladaha bulshadu abuurto tusaalaha sad afraad waxa weeye waa waxa loo yaqaan gabadha weyn ee la guursado ninba dhalinyaro ah gabadh ka helaya gabadhaasi oo arkaya inay tahay gabadhii uu qalmeysay ama adduunyaha ku doorto ama quruxa ku doorto waxyaabaha la isku doorto mid kamid ku dooranaya ama laba ama saddex kamid uu ka helayba hadii gabadh weyn ay tahay oo diintiina ay garanayso nasab sarana ay ka dhalatay dhaqaalana ilaahay u dhiibay oo ay leedahay wareer xaaji soo xaroodun inaad adigu muhiim soo xarootaa waa muhiim waxba laga ma raba ay leedahay xagaa lagu diidaya isla markaana wali chance ay ilmo ku dhashaana uu haray 35 haday tahay wali chance bay haysataa wax ku dhasho hadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siinay iyada iyo taal 20 jirkaay waxa uu simanyi adama aragta dabeedna waa lagu dhaleeceynaya wiilkii waxaana gabadh ka weyn buu guursaday gabadh ka weyn ayuu guursaday gabadha lafteedii waxa lagu dhaleecinay waxa leeyahay ciyaalka yar bay ka qaraawata marba mid yar bay meelaha ka eeganta maanta mid yar bay gacanta ku dhigtay oo mi baqtiina saaday ku dhigto meena caaqulahay guurku madaabu ku xiran yahay mise ikhtiyaar iyo doorasho iyo keelid buu ku xiran yahay sidoo kale ninkii weynaa baa lagu dhaleecinaya oo waxa la oranayaa gabadh ka yar buu guursaday inan ka yar buu guursaday sidoo oranaya muxuu ahayaa awoodiisii baa la shaki gelinayaa ninka waxa laga dhigaa inaan tamar balahaynba oo inan teeray aakhiro u diri karto war waxaan ana fahansan mashruucan ana aqaan sida looga baxo horaan si soo tijaabiyay laacib horaan ahay waxa waan fahmiyaa iga daayay tashuushka ma jirto tusaalaha shanaad waa xagga iyo hilibka iyo boornida waxa loo yaqaan dadkeenu waxay cabsi geliyaan ama la xuuxiyaa ama la fool xumeeyaa qofka buuran wax la oranay kaamiyaha oo buuraya xuma hayo xuma qaban karo waxba ka tari maayo sariirta ma qaban karo shaqada kale ma qaban karo halkan ma gaari karo dabeedna qofkii cuqdad baa lagu beeraya taas waa ta keentay in xanuuno la xiriira xagga ay cunida aan marar badan ka hadalaynay yimaadaan oo gabadhii ama inantii habeenkii wax uma cunayso maxay wax u cunaynin iyadoo maanta oo dhan shaqeynaysa bay saaka bilaa quraac tahay caawana ma casheynayso duhurkana qadayar bay qaadanaysaa wa sababta ay nafaqa darrada isugu dirayso ee macaluusha isu gelinaysaa waa maxay weyni miisaankeeda dhinto miisaanka kuusan baa dhibaato ku haya sababta ay dhibaatada uga haysaa waa maxay bulshada cuqdad u gelisay si loo lahaa buuranow waxa loogu lahaa cuqdad badeena qofkiiba gashay waxa saasoo kale la mid ah ninka dhuuban baa la mid ah ee aadka u dhuuban
gabadha haddii uu guursadana gabadha la eedeynaya waxa la leeyahay haa war gabadha ma inaa waxba ku siininba waxba miyaanay kugu duxinba waxba miyaan lagu diyaarinba oodkac miyaan lagu siin muqmad miyaan lagu siin cambuulo miyaan lagu siin haddii gabadhuna sidoo kale ay u dhalatay lafa yaryaraan ay u dhalatayna iyana waxa la eedeynaya ninkaa la eedeynaya markaasaa la odhanaya haa naaninku maan waxba ku siinin miyuu ku dilaa miyuu ku gumaystaa ma aakhiru kuu diraa oo kaas intaas iyo in kale oo badani waa tusaalayaasha ay leedahay waxyaabaha dhibaatooyinka ee bulshadu ay dadka ku abuuraan taladayda aan soo jeedinaya waxa weeye walaalayaalow ilaahay ka baqa qof kasta iyo sida uu yahay ilaahay baa ku abuuray gabadha iyo ninka isguursaday aan ubad ilaahay aanu siinin xasaasiyad ha ku beerin cuqdad ha ku beerin ilaahay subxaana wa tacaala baa siin doona ugu duceeya wararka aad raadinaysaanna waxay idin tarayaan anigu ma garanayo bal maxay kuu taraysaa qofkan aad maalin walba leedahay gabadha imse kuu leedahay hadduu 200 bay leedahay maxay macnaadiya kugu fadhidaa hadduu idhahdaa midhbayo ma laha miyaad siin kartaa adu mid odhan kartaa anaa ilmahayga yar kuugu deeqaya waa maya soo maaha cuqdada ummadda ha laga daayo dhibaataynta ummadda ha laga daayo insha allahu tacaala waxaan jecelahay mowduuca istigmada la yidhaahdo inaan sii wadaa baan jecelahay asxaabay soo dhaweeya muuqaalkan in badan oo dadka la midan oo dhibaatadan ay haysatana gaarsiiya aad iyo aad bay idin salaameen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu